Soomaalida waa kuwa mar walba u nugul sheekooyinka xasaawaha iyo jaceylka badi dadkana waa kuwa si degdeg ah isugu xanta fanaaniinta markay heysiis kala soo muuqdaan xilligan ishu waxay ku foorartaa Mursal Muuse iyo Xamda Bilan kuwaasi oo goordhow soo saaray heesta biyo holac ah muuqaalkan koogo waxa ka dhaxeeya Mursal Muuse iyo Xamda Bilan aragtida ujeedada ee heesta dhaxyar kaga soo muuqatay taageerayaasha Hodan Cabdiraxmaan oo xaaska Mursal ah oo aad uga falceliya muuqaalka heestan iyo sheekooyin kale oo xasaasi ah ayaan idin la wadaagi doonaa laakiin marka hore like saar muuqaalkan si muuqaalku uu saaxiibo badan u gaaro una share gari asxaabtaada kale ee Facebook waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga balku degtay bahal kula tag warikaasi miyaanu ahay ninkii labadii sano ugu dhameysay buuqiisu taagnaa ee labada gabdhood ee fanaaniinta ah ee isku haysteen war ma waanu ahay ninkii la lahaa fiisa Mareykan u sugaya oo hadii taraamba aqalka cad weedaarto oo Biden soo galaba fiisihiisu waa diyaar oo dadka ugu horeeya ee Mareykanku soo dhufanayo buu ku jiraa waralmeeno warikaasi amu degdegaya labada fanaan ee kala ah Mursal Muuse iyo Xamda Bilan ayaa codkooda iyo jiliinkooda ku shiday heesta soo jiidatay qaar ka mid ah bahda u nugul dhageysiga heesaha taasi oo ah heesta dhaxyar waxaana aad loo amaanay naqshada cusub ee malabka ah ee loo naqshadeeyay duubista heestan marka loo eego hablabiska roobka da'ay ee aan la hubin inuu ahaa mid dabiici ah ama mid lagu naqshadeeyay xeeladaha filim duubista si kale haddii aan fiirino qaabka soo jiidashada leh codka baxsan ee Mursal iyo jileenka qalanjadan ayaa heestan ka dhigay mid ka dhex tilmaaman heesaha waqtigeeda soo baxay ma ka shaadilata dhololeysa ma dhimbil cishqiba ku dhalashay ma ilmo dardada dhabankaygu soo imaadigan waadka hilowga markay heesta soo baxdaba kacsanaanta saameynta heestan sida ay heesta u diyaarsan tahay waxaa barbar socday muran badan oo ka taagan sababta Hodan Cabdiraxmaan aysan heestan uga soo muuqan waxay ku cadaynaysaa inaanay ka xanaaqin xaajigeeda wax uu sameeyay dadka qaar waxay sheekada labadan fanaan ka dhigeen in labada fanaan uu jecel urduna ka dhaxeeyo taasi oo runtii ah wax la iska yiri waa la yaab balse aanu isla eegno muuqaal yar oo la isku keenay oo ka turjumaya in Hodan Cabdiraxmaan dhankeeda ay tilmaamayso in heestan ay xifdisan tahay oo ay wax walba kor kala socoto iyo jihada kale muuqaalka heesta oo laga bixiyay reaction badan oo si toos loogu iclaamiyay in Hodan hadda aysan faraxsanayn qaar ka mid ah dadku way og yihiin inay caadi tahay in laba fanaan ay hees iskala soo muuqdaan sida dhici jirtayba balse waxaa sheekada holac ku shiday jiliinka oo loo arkay inuu ahaa mid aan inaba caadi ahayn iyo in Hodan Cabdiraxmaan ay isguursadeen Mursal waqti ay ka dulqaada qadar silmo iyaduna fanaanad ah xibaanada falanqeynta ayaana ahaa adkaysa adiguna markaaga waxaan leeyahay odanay Soomaalidu waxa ku maamada nabara ogtahay naxdin male ninkan adu guriga hooyadiis kama soo kaxaysan gabar saaga ah isagoo guriga ugu jira waa ugu dhacday oo ka soo kacay midxaysi oo dhabarka gadaal ka shatay marka Soomaalidu waxa tirada go'aan qodin hadaa qodora ha dheerayn ku dhici doonto ma ogid dhanka kale marka laga eego sababta ay uga soo muuqatay Xamda Bilan heestan ayaa loo arkaa inay tahay atiriisho ku soo baxaysa naqshada heestan sida darteedna jilinkii ay kala soo muuqato loo fasiray arrimo kale qofka ugu horeeya waxa uu soo qoray dabcan waa qof dumar amalena naag nool is adkay weligaaba wajigaaga ayay ka muuqataa fiifa nafsiga qadar silimo waxyaabaha aan hadda ka soo hadlay waa xantii kaftanka fanaaniinta ee aan ku arkay baraha bulshada qaas ahaan YouTube iyo Facebook aniga aragtidayda waa wax iska caadi ah jilinka Xamda Bilan ee heestan waana wax aan sidaas u sii burnayn qiyaasteedana waxba kama jiraan jaceylka la leeyahay inuu ka dhaxeeyo labada fanaan oo ay heesta kulmisay adiga haddii aad muuqaalkan daawatay oo ilaa ay dhamaadkaan nala joogto aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga hana hilmaamin inaad muuqaalkan like saarto una share garayso asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafiinho aad ugu mahadsan tahay la jaanqaadkaaga iyo taageeradaada